maalin ka hor waxay shirkadda theatre production ay baahisay muuqaal ama waraysi ay ka qaaday taliya Bashiir oo ah taliyaha la nool xanuunka AIDS-ka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karash ayaa maanta taliya Bashiir waxa uu dilacsiiyay hal darajo halka markii hore ahaa kabtan waxa laga dhigay gaashaanle anigu waxaan ahay nin xanuunka la nool laakiin inaan gabadho kuma talagelin waxay u kalifayna waxay tahay markii horeba go'aan baan ka qaatay ku laaban mayo wixii ugu soo dhacay iyo macnaha media ku jira ma rabo inaan ku laalaabto macnaha qof de ku diganayaan u ekaanaya gabadha aniga igu ritay xanuunka laakiin waan cafiyey waan ka gudbataa waxaan markaa rabaa in waxaan laga run sheego Puntland kaliya ma ahan Soomaaliya oo dhan wala media la hortaaganahay inay warkayga maqlaan baa jecel maanta waliba sharaf ay tahay madaxweynihii dhalinyarada baa meesha fadhiya marka waxaan rabaa in warkaan aan maanta halkaan ka sheegayo iyo kuwa kale oo hore iga baxayba inay gaaraan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxa weeye waxaan waa la joojin karaa wadamo waxaa jira boqolkiiba 50 ku dhawaaday haddana waxa la 4% 2% ma isii marayaan way ka run sheegeen waxa la way arday u dareerto anaha inta internet-kan gala YouTube-kan kala soo baxaa waan arkaa waxyaabo badan baan arkaa oo akhristaa marka waxaan u leeyahay nin aad uga shaqeeya ayaan anigu macnaha weydiiyay intee maraya Soomaaliya guud ahaan wuxuu marayaa 11700 14 saasaan maleynaya inuu dadka dhintay iyo wax nool buu isku dar asagu dadka ku dhacay uu sheegaya oo Soomaaliga ah waxa dawada qaatana 3000 iyo xoogaa weey guud ahaan hadda waan maqlayseen agaasimiga guud ee baag waxa soo miiran baa dalkeena ka jira dadkii waa wada qurqurux badan anay wada eegayeen gabdhihina magaalada yaacaya waxa kale oo jira gabdhii sidoo kale haddii waxaan la faquuqo uu sii soconaya nin walba qoyskiisii gurigiisu gaaraya waxa la rabaa in la mideeyo dadka la arko boqolkiiba boqol waxa weeye waxaan aad u saaraa boqolkiiba boqol waxaan aad u saaraa horta aniga dhinaca maxaan ku radaa caafimaadka iyo qoyska qofka uu ka dhashay iyo bulshada maxaa yeelay bulshada haddii guriga ka kareen weydo ama la cayriyo ama la kaas waa dhimanaya waa wax aad cajiib ah maalintii ugu dhacay gabar walaashay say u ooysay xanuunkay ka qaaday oo u dhimatay macnaha waxay ka ooysay aniga xanuunkay ugu dhacay mid kalena way soo wacday ma dibadaha jirta waxay tiri walaal caruurta agoonta ah aniga biili doonay labadayda kee horumariyaan ku yiri su'aasha aan irwey waliba igu cusbaayo waliba macnaha dadka waxaan markaas xaaladeedu ma fadhiyo khayr Allah siiyo dadkii ila taliyay Dr. Xabiib ayaa kamid ahaa waxaan rajaynayaa inuu sabcisaan Dr. Xabiib khayr Allah siiyo aad baan u amaanayaa iyo xalimo oo aqoonida iyo gabdho badan oo maartay isbitaalka ka shaqeeya aad bay ila shaqeeyeen dadka gooyay baan kamid ahaa maalmihii hore oo dhan muddo maqnaayo fooxyaa liishida dhowr jeer idaa la qal wixii inay soconayeen marka arkay iyo danta ii soo rusheegto halkay ku soo noqdo dawada sida aan u qaatay hadda cayilkan dhimaa subax walba waa ordaa cayilkan iska dhimaa waliyaada hore fariisanine sidaan iska dhim marka waxaan ka wadaa dadka nolosha mooday inay ka tageen oo maantay qof walba inuu Ilaahay isku xiro oo ayaguna dadka xanuunka la nool ay Ilaahay isku xiraan ayna dhicin in maartay ayna de maanta idinku dambeysay iyo maartay dadka in waxa ay aaminsan yahay saad bulshadii baad ka helaysaa aniga walaashay markay leedahay ciyaalkaada agoonta anaa biilayo wadareemi kartaa culayska intuu leegi marka waxaa la rabaa in maartay waxaan laga run sheego in qof walba ku dhici karo
qof islaam inuu ku dhici karo inuu muslim baan ahay laa ilaaha illa allah muxamedan rasuulullah waxa weeye dadku waana igu dhacay si kastaba igu dhacee waxaan codsanayaa marka in ummadda la soo dhaweeyo ayagana ay dhowraan dadka ummadda la jooga ay dhowraan waxaan kaloo codsanayaa waxaan in loo soo saaro sharcigaas kolley agaasimi waa fadhiyaa madaxweyne ku-xigeenka waa noo joogaa wasiirada waa joogaan sharcigaas waxa weeye qof waxa weeye aniga haddeer tusaalaan ka soo qaadanayaa markii ugu horreysay gabadhaas aan soo keenay station baan keenay waxaan idhi arrintaasaa jirta ninkii qalinka ku qorayey hoobiga baa cararay kuwii askartiina nin walba halkii hortiisu ka baxa waxaan ogahay dad badan oo guryo laga saaray oo saaxiibaday ah markii la ogaaday inay xanuunka qabaan dadku ninka u badan qolbu kiraysan karaa waxaa dhacayso markuu qolka kiraysto ayaama deganaado warkii baa isgaaraya xaafad dhan oo waxaad arkaysaa leh nin waxaa nala soo degay ama gabar waxaa nala soo degsay xanuunkaa la noolo kulli ku dareeraya isbaalkiisi socdo le waa iska baaraynaa oo miyuudu fuulay ninkaa mise dhibaato idin geysta maxay tahay dhibka intaa le marka waa yaabaa waxa lagu kala qaado dadkii garan mayaan marka waxaan marka aada u jeclaan lahaa dhakhaatiirtii baa fadhida oo aada u wanaagsan in wacyigelinta intaan laga badiyo aniga gabadhi isku soo harnay ilaa aan cabaar waaniyo kaalay anigaa qabay adinka ma qabtaan war ku ridi mayso ilaa iraado neef laguma kala qaado cabaar dhan baa qaylinay marka waxa way wacyigelin la-aantaa keenaysa waxaa kaloo dhacday qofku waa inuu leeyahy qodob loo cuskada oo dembiile macnaha ka dhigaysa eedaysana ka dhigayso hadduu asaga dhibaatada faafinayo oo u horseedayo rag iyo dumar wuxuu doona ahaa kow dadka dhibaatada u geysanayana waa in loo helaa ayagana qodob qabanaya labadaa maado waxaan jeclaan lahaa in la soo saaro maanta wax naga maqan ma jiraan baan u malaynayaa aada baad u mahadsantihiin in hawshaa iyadaa qofkaas oo kale aynu u wada istaagno oo tusno in ay maxay tahay bulshadoo dhan dowlad iyo shicibba in qofkaas oo kale ay garab u tahay dadka reer puntland uu garab isagu u yahay qofkaas oo kale aada iyo aad baan maxay tahay arrinkaa isaga waxaan aada iyo aada u ammaanayaa taliya bashiir oo aan aqoon dheer u leeyahay oo aanu wada shaqayn jiray oo nin muslima ah nin caadiya ah nin wanaagsana nin waddani ah oo cudurkaasi aan maqlay sida ugu dhacay dee ilaahay u keenay oo sabab ilaahay uga dhigay oo aanay dadka siyaabaha xunxun ee loo qaado dabcan aanu u qaadin oo ku dhiiraday oo maxay ahatay la wadaagay dadka tv-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay-aduhu ku shaqada lihi ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxaan dhiiranaantaas uu sameeyey iyo mas-uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay-adda iyo ciddii kale ee maxay tahay uu la xidhiiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale waxaan in la dhiirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kan aan hortiina ka ballan qaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhiirigelin hal derajo dalacsiinay bashiir ninka laga bilaabo hadda waa gaashaanle gaftan buu xidhnaa hal derajaanu ugu daray ila soo dhaweeya aada iyo aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu